Sideen ku noqon karaa akhrista wanaagsan? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube-ka Moodeexeeye. Magacaygu waa Maxamed Salamaan Cismaan. Halkan waxaan uga hadalnaa waxyaabaha ay ka faa'iidi karaan dhalinyartu. Maanta muuqaalkeenu waxa uu daaran yahay wax akhriska. Wax akhrisku wuxuu yahay sidee baan ku noqon karaa qof wax akhrista ah, qof buugta akhriya. Haddaad doonaysid inaad noqoto qof intellectual ah, qof maanta fikir wax la weydiin karo, qof maanta opinionkiisa iyo fikradiisa ka hadli kara, buugta akhri. Wax akhri anything, ama buug ha ahaato ama ha noqoto magazineska. Wax akhrisku waxa uu kaa saacidayaa inaad hesho fikrad, wuxuu kaa saacidayaa inaad hesho fikradooyin badan oo dadku ay leeyihiin. Akhrisku waxa uu leeyahay laba weyba, qayb xun iyo qayb wanaagsan. Markaan ku leeyahay qayb xun iyo qayb wanaagsan buu leeyahay, waxa kamid ah tusaale ahaan oo kale dadku siday u fahmaan akhriska. waxa laga yaabaa qofku inuu qalad fahmo fikrad qof leeyahay, ama fikradaas kaba soo qaad maybe way qaldan tahayba, oo maaba khusaysaba muslimiinta ama qofka islaamka, ma khusaysaba qof gaal ah khusaysa buugana qof gaal ah qorayba kaba soo qaad. Fikradda haddaad raacdo oo akhris fikrad kasta oo buuggaada sideeda aad u raacdo, dee qalad baad ku dhacaysaa, mistake baad gelaysaa, gud baad ka dhacaysaa. Waxa marka lagu leeyahay qalad fahmin waxyaabahaas markaad wax akhriyayso fikradda, markaad heshay abla-ablee fikradda qorshee, yacni fikraddaas adiga dhankaaga maxay ka noqon kartaa. waayo waa buugga wax ku qoran waa fikrad ama waa opinion. Marka lagu leeyahay caado cusub baad samayn kartaa, marka lagu leeyahay dhaqan cusub baad samayn kartaa, marka lagu leeyahay dadka sidaa ha ula hadlin, waxyaabahaas oo dhan waad ka fikri kartaa. Yacni ma positive ba mise waa negative. Positive-yada qaar baa xitaa mararka qaar effect kugu keeni kara ama saameyn kugu keeni kara. Waxyaabahaas ka mid ah in marka aan ku leeyahay wax xubso. Akhriska marka aanu nimaadno muhiimadda uu leeyahay, akhrisku very important weeye. Qofku wuxuu la noolaadaa kumanaan sano oo la soo dhaafay, awoowayaashii taariikh hore ayuu wax badan ka ogaanaya. Sidoo kale akhrisku waxa uu muhiim u yahay maskaxdaada. Jidhkeena waxa quudiya ama aynu yacni muhiim u ah wax weeyaan, ama jimicsi u ah, yacni waa cuntada. Cuntada haddaynaan helin jidhkeenu isku dhacaya. Sidaas la mid ah maskaxdu haddaanay akhris helin kobci mayso. Marka akhrisku waa muhiim. 3 buug oo aad very important u ah Soomaaliduna caalamka ah oo muhiim ah oo aan ku oran lahaa akhri baa jira. 3 buug waxay kala yihiin: buug wax la yiraahdo Atomic Habits, waa caadooyinka yaryar. Qofku haddaanu caadada bedelin, tawayna bedeli kari maayo. Marka koobaad, marka ugu horeysa caadooyinka iska hagaaji, ama caadooyinkaaga xun bedel oo caadooyin wanaagsan meesha geli. wax marka aad bedelayso wax kale ayaa bedelkiisa la keenaa oo wax lagu buuxiyaa. Laakiin hadda tahay waxaasan ka tegayaa anaa waxba samayn, taas way kugu yara adkaanaysaa. Marka buugga Atomic Habits caadooyinku ka hadlaa qaabka caadooyinka yaryar loo sameeyo iyo sida caado cusub lagu abuuro marka uu wacan yahay. Sidoo kale waxaa jira buug la yiraahdo Eat That Frog, rahaaga cun. buuggaasna wuxuu ka hadlaa procrastinationka iyo dibudhigga. waxa marka dhalinyarteena haysta wax weeyaan waa dibudhig, inay wax leeyihiin delaying. waxa bari baan samaynayaa, saada ma samaynayaa, saakun baan samaynayaa, sanadka soo socdaan samaynayaa. Future-kaaga laga yaabaa inaad tiraahdo riyo ku noolaato. marka waxyaabahaas ka mid ah akhrisku waa very important, aad iyo aad buu runtii muhiim u yahay. buugga saddexaad waxa uu yahay 48 of Law, 48 xeer ee awoodda. Yacni buuggaas wuxuu ka hadlaa qaababka aad techniques-ka aad isticmaalayso iyo behaviors-kaaga. anigu marka aan ku leeyahay buugta akhri, waliba waxaad akhridaa buugta xagga diinta, iyo maadaama aynu islaam nahay, buugta xagga diinta iyo waaqaca aaminsan. buugta dadka caddaanka ay qoreen wax laga yaabaa fikrado khaldan oo yacni gaala ahaan iyaga xalaal u ah inay ku qoran yihiin. marka inaad fikrad walba raacdo maaha, sidaan hore usoo sheegnay, waa inaad fikradda abla-ableegaysaa adiga. Yacni maxay dhankaaga ka noqon kartaa fikraddaas? qof baala soo maaha, sideebaad adigu yacni fikradda inaad qaadato markiiba maaha, waa inaad abla-ableyso fikraddaas. hadday kula wacnaato oo aad questionnaire ku samayso oo fikradda sax tahay, waa inaad qaadato. laakiin hadday fikraddu tahay fikrad yacni diiniyan khaldan, ama fikrad ah yacni waaqacaaga aanad aaminsanaynin, fikraddaas ka dhaaf. qaladaadka inta badan ay dadku galaan ee buugta ka galaan ama ay qalad fahmaan waxyaabahaas ka mid ah. sida akhriskuna wuxuu u baahan yahay inaad dadaal badan geliso, waqti buu u baahan yahay. inta aad la qabsanaysaa ay maskaxdaadu la qabsanaysaa waqti bay qaadanaysaa. marka tusaale ahaan oo kale marka bilowga aad tahay, haddaad buug
yacni kaa awood badan ama buug dee taariikh hore ku qoran tahay ama buug history ama buug waxay doonto baa noqotee buug dee yacni genius u baahan maskax caqli fara badan u baahan haddaad soo qabsato marka ugu horeysa aad ku bilowdo maskaxdaa ku xanuunaysa markaad page ama 2 page akhrido madaxa ku xanuunaya waa iska tuuraysaa markaa buug yar oo kooban oo weliba adiga aad xiisaynayso soo qaado buugga akhri buugga markaad akhrido haddaad doonto haba fahminba marka labaad aad ku celiso baad buugga fahmaysaa sidoo kale marka aad doonaysid inaad buuggaas imika waxaa jirta qodob muhiima oo ay ka mid tahay tusaale ahaan oo kale buugga Atomic Habits caadooyinka sida loo bedelo wuxuu leeyahay markaad doonaysid inaad caado cusub bedesho caadada wax kale ku buuxi ama markaad doonaysid inaad caado wanaagsan samayso caadada wax kale condition uga dhig tusaale ahaan oo kale waxaa tahay qof isticmaala social media aaladda TikTok ku xooggan macnaha mar walba isticmaala soo marka waxaad doonaysaa inaad caado cusub barato oo tusaale ahaan oo kale akhriskaba oo kale marka inaad buug akhrido waxa muhiim ah yacni condition waxaad uga dhigaysaa TikTok-ga inaad TikTok-ga gasho oo TikTok-ga isticmaasho waa inaad marka ugu horeysa ilaa 20 page akhrido buugga soo marka wax weyn kula noqon maysa 20 page aad maalintii akhriyaysaa sababtoo TikTok iyo de waxyaabo caadooyinkaagii muhiimka ah baa ku sugayay marka si aad caadooyinkaaga muhiimka u gaadho waa inaad 20 page ka saartaa waad ka saaraysaa sababaha ka mid ah caadooyinka cusub lagu bedelo qaabkaasaad wax akhriska aad u kobcin kartaa sidoo kale marka aad akhriskaagu u bato ama aad noqoto qof buugta akhriya waxaad noqonaysaa qof cabqariya oo genius oo maskaxdiisa ka hadla doodaha geli kara buugaagta taariikhda imika tusaale ahaan oo kale awoowayaashaayoo kale baad dee taariikhdoodii haysaayo qof 50 sano ka hor noolaa baad isku da'tiino yacni wixii uu dee waagaa samayn jiray oo dhan baad ogtahay marka waxyaabahaasa uu akhrisku uu muhiimka ugu yahay qaabka aad ku bilaabayso akhriska iyo boosayska ugu wanaagsan ugu habboon aad akhris ku bilaabi karaysano waxyaabahaasa ka mid ah steps-ka aan soo sheegnay channelka haddaad ku cusub tahay subscribe noo dhe muuqaalkana noo like garee weliba haddii muuqaaladani ay ku qanciyeen oo channelka aad ka heshay gambaleelka furo si aad muuqaal kastoo aan soo dhigno uu kuu soo gaadho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu